بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. درس كان مانتا ودرس إن بدن أي نسلا أجني أما بلشة هايستي ودرس كصابسان دباتوين كقربها كقب صدادتك غارهان بلشة إن مسلم كالصوماليات هي قويس سكودي. waxaan u malaynayaa deris noocan ku saabsan waqti 10 sano ka horeysay inaan meelaha kan ka akhriyay oo ku saabsanaa الجالية الصومالية في الغرب، مستقبل الجالية الصومالية في الغرب، وأنا يجي إني مشكلات كصاص على نوع أيوة كان كران هي وحيابها المركز لهين والجود وين كريه. ولسه waxaan arkayaa inay dhibtu sidii u taagan tahay, xalkana isku dayada badhay jiraan laakiin wali aanu buurayn. waayo wadamada tan waxaynu nimi inagoo qaxootiya oo kala daadsan oo qabaa'il wadankoodii isku dilay ah oo kalsooni badan aanay mujtamaca dhex oolin. waxaynu nimi wadanno aynu ku kala gedisannahay dhaqanka iyo diinta iyo midabka iyo afka iyo wax kastoo lasoo tilmaamaba. wax badan oo nolosha ka mid ah aynu kala aragti ku nahay. waxaa jiro kale galbeedka markaynu nimi waxyaabaha qaarkood si bay u fududaatay oo bulshada galbeed waa laga dhexelay. baahidii calooleed in la iska haqabtiray, waa laga dhexelay nooc min nabadgelyo in la helay, waa laga dhexelay documents iyo wax lagu safsafro oo lagu socsocdo. all this waa wax inaga soo galay, laakiin waxa kaloo aynu kala kulannay moral jab weyn oo wixii aynu moodaynay inaynu helayno aynan helin, dadnimada oo hoos u socota, qofkoo qiimayntiisu ay aada u liidato, waxbarashadaynu meesha la nimi oo aada u hooseysa, rajada aynu mustaqbal ka qabno oo aan qurux badnay, suuqa shaqada oo aan laynaga soo dhaweynaynin, asbaabo badan daraaddood. waxaan raacaa inahaasi oo dhan dad qaxoonti ku yimi dhibta badane ka hor timaada waa tiro badantay. ma rabo dhibaha suuradeeda inaan in badan ka warramo waayo waqti badan ma haysano. mid labaadna marka qofka bini'aadamku uu hadlayo hadalkiisa wuxuu ku bineeyaa dadka uu la hadlayo aqoontooda. haddii aan Soomaali aan qurbo joogin la hadlayo waa laga yaabi lahaa inaan isku dayo inaan balbalaadhiyo dhibta qurbaha taalacaanka u eg tahay, laakiin hadda waxaan la hadlayaa ciddii ay haysatay. marka kullukum khabiira wadatiin. qof aan masalada khibrad u lahayn oo expert ku ahayn oo aanay haysani ma jirto. sida daraaddeed uma baahna inaan tafsiiliyo idhaahdo kaasina wuu jira, kaasina wuu jira, kaasina wuu jira. laakiin waxaan rabaa dhowr qodob oo kooban inaan tilmaamo. maxaa xal ah? hore waynu is weydiinay, weli way is weydiinaynaa, afartii isu timaadaba way is weydiinaysaa, muxaadaraadka meesha lagu qabto waa la is weydiinayaa, maqaaxyaha iyo meelaha lagu sheekaysanayo waa la isku weydiinayaa, masaajidii waa la isku weydiinayaa. maxaa xal ah? waayo way soo kartay. saa daraaddeed baa maxaa xal ah la wada leeyahay.
aragtidayda kooban xalku waa inaynu dhowr shay ilaalino saan shalayba halka tilmaamayay waa inaan ilaaliyo identity-ga aynu leenahay Soomaali markaynu leeyahay identity baynu leenahay identity-gaas waa shay af ah culture diin leh saddexdaa ki kasta oo khalkhala oo dhibi ku timaado waa dayac ummadda ku dhacay waana ashyaada aynu ka cabanayno culture-ka waa inaynu ilaalinaa ku saabsan dhaqankii reernimo aynu lahayn iyo family-gii values-kii iyo waxyaabihii aynu qiimaynayna aynu rumaysnayn even qofka waxaa xidhiidh badan la leh oo aanu ka fuqin waxyaabihii hore u soo yaqaanay ee dhar ah ee cunno ah ee kan ah waxaasoo dhan waad u baahantay waayo waxay noqdeen culture noloshaada ka mid ah waata aynu ilaa hadda bariis iyo baaste iyo intii uun cunayno aynu xaggaa kaga nimi maradaad xaggaa kaga timi qofka aynu aragno mara aan keeni ahayn sida waxaynu idhahnaa waa sii socdaa arag wuxuu gagashan yahay yacni maradu astaan bay inoo tahay aynu ku tilmaxaynu u leenahay ninkani wuu sii socdaa waxaynu arkaynaa culture aynu haynay inuu qofkani ka sii siibanayo marka even maradaa qiima inoo samaynayso sawir bay bixinaysaa qofku marada uu xidhan yahay nooca ay u eg tahay sawir bay bixinaysaa ka tarjumaysaa afkaarta iyo wuxuu rumaysan yahay iyo meesha uu ka soo jeedo waayo umamku waxay ku kala gedisan yihiin cunooyinka ka mida dharka ka mida afka ka mida qaab nololeedka ka mida noloshu siday priorities ugu kala leedahay baa ka mida diinta ka mida waxaynu soo tilmaamnay saddex seerkaloo kala weyn baynu ku jirnaa seerkalka bini'aadamnimada human being baynu nahay dadka bini'aadamnimaynu la wadaagnaa man ana markaan idhaahdo kow insaan baan ahay human being dad badan baan la wadaagaa seerkal ka sii hooseeyaan ku jira oo ah man ana haddii laysii weydiiyo waxaa lay muslim baan ahay waa seerkalkii ka hooseeya haddii laysii weydiiyo waxaan leeyahay Soomaali baan ahay waa seerkal ka sii hooseeya saddexda seerkalba identity-gaygay ka mid yihiin ka u sarreeya haddaan ka dhaco dee bini'aadamnimadaan ka dhacay xayawaan baan la mid noqonaya wixii human nature-ka lagu yaqaanay haddaan ka baxo waa daa'irat alxayawaaniya ayaan galay kaa waxa ka sokeeya waa islaamnimo islaamnimada haddaan ka dhacana gaalnimaan u dhacaya kaa mid baa ka sii hooseeya oo ah soomaalinimo waa dhici kartaa inaan muslim ahay laakiin haddana dee waan ka gedisanay muslimka bakistaaniga iyo muslimka carabka iyo muslimka afrikaanka waan ka gedisanay muslim waa wadano daa'iradda waa ku wada jirnaa laakiin khusuusiyaad gaara baan ka sii leeyahay oo ah soomaalinimo soomaalinimadaasi lugaha ay ku taagantay nation waliba waxa ugu horeysa af ummadda afku ka lumo dadkay xidhiidhka la lahayd way ka gooday haddii afku lumo afku waa wicaaga waa weelka sida baynu nidhi dhaqanka haddii af soomaaligu uu go'o ilmahaagu wuu fiican yahay waa muslim waa kan laakiin af soomaaligii baa ka lumay ingiriisigu ku hadla waa muslim kanadiyana dee markaa wuxuu la mid yahay muslimiinta kale ee dhulka joogta ee afafka kale ku hadasha waa muslim bakistaaniya muslim hindiya muslim carbeed buu ula mid yahay ninka soomaaliga waayo xidhiidhka ninkan iyo dhaqankiisa iyo dadkiisa iyo wixiisa ka dhexeeya luqada tan buu ahaa waxay dhahdaan dadka bulsho ee luqo ku soo kora ee luqadooda si fiican u gartaa languageska kalena horey u bartaan saa daraaddeed bay qolyahan pedagogiga dhiga educationka waxaa la tilmaamaa bilinguistku qofka ah laba luqoodluhu inuu ka karti fiican yahay aqoon ahaan bay dhahdaan qofka halka luqa leh waxay dhahdaan qofka luqada uu ku dhashay si fiican u sugaa waxa fudud talabaadna inuu si fiican u sugo bay leeyihin waxa fudud inuu talabaadna si fiican u sugo waa tajriba ay ku sameeyeen dadkan Latin Americanka ee ku nool Mareykanka ee Isbaanishka ah ayaa gobolada koonfureed ee Mareykanka waxay sameeyeen daraasa lagu sameeyo dadkaasi
laba nin baa hadda jiro theory-gaasi hogaamiyo dunidoo dhan looga yeedho oo qadiyadaasi sharxa oo natiijadii ay soo saareen ka warramaya. Natiijadooda waxay tilmaamaysaa qofka bilingualka ee luqadii uu ku dhashay si fiican u garanaya inuu ka waxbarasho fiican yahay qofka kale ee meel kale u tegay. waxaan rabaa markaa inaan luqada ilaaliyo. mar kastoo luqadu idinka luntay ogaada identity-giinii qayb baa maqan. Soomaaligu dhibta haysata waxa weeyaan luqadeena waxbaba uma aragno. luqadu waxbaba agteena kama aha. laakiin luqadu waa waxa adiga iyo qofkan Soomaaliyeed iyo bulshadii uu ka yimi waa xidhiidhka qura ka dhaxeeya. Otherwise muslimiinta Pakistan ku nool buu la mid yihiin muslimiinta ku nool Soomaaliya iyo muslimka Pakistan ku nool isaga isku mid bay u noqonayaan. ka labaad waa inaynu culture-ka ilaalina oo luqada haddaynu ilaalino culture-ka la ilaashamaya. culture-kaasi oo ka mid ah qaab dhaqameedkii nololeed aynu lahayn ee value-ga fiican ahaa ee aabbo hooyo walaal adeer qoyska sida isugu xidhan yihiin ixtiraam ka dhaxaynaya values-ka la wada haysto. waa inaan ilaalinaa culture-ka xataa waxaan leeyahay waa inaa ilaashataan cunadiina iyo dharkiina iyo waxa kane kullama aad kuwaasi ka fogaato waxaa adkaanaya hadhow inaad culture-kii si fiican ula qabsato. waxaa adkaanaya hadhow inaad culture-kii iyo dadkii aad ka timi si fiican ula qabsato. ka saddexaad ee identity-ga ee culture-ka aan ka warramaya waa diin. waa shayga inoogu muhiimsan. dee at least hadduu daa'irada Soomaalinimada ka dhaco iyada waa inaanu daa'irada muslimnimada ka dhicin de hadduu taa ka dhaco dee waa kaa dhimay. waa inaanu ka dhicin at least daa'irada maxay muslimnimada inaanu ka dhicin. kaasi wuxuu yahay markaa shayga koowaad aan leeyahay waa inaynu ilaalino si aynu xal u helno. waa inaynu ilaalino. shayga labaad aan leeyahay waa inaynu ilaalina waxa weeyaan waa family-ga. unuga reernimadu waa mu'asasada ugu qadiimsan taariikhda basharkee la hayo. dowlad iyo qabiil iyo waxaan ka sarreeya marka laga yimaado unug jira oo dhisan oo organa intii taariikhda reer nebi aadam wax laga garanayaba waa la hayaa. dee qur-aankuna waxau inoo tilmaamaya iyagoo family-a inay soo degeenba dunida. aadam wuxuu yimid de isagoo xawino la socoto family-a. taariikhda bashariyada inta la hayo waxa weeyaan family-gu waa shay asalka ah. saa daraaddeed ummad kasta jiritaankeeda family-gu waa ka asal. hadduu family-gu markaasi dumo macnaheedu waxa weeyaan ummaddaasi inay dumayso. family-gu hadduu dumo macnaheedu waxa weeyaan in ummaddaasi ay dumayso ay burburayso. markii aynu nimi dhul aynu qariib ku nahay af ahaan luqa ahaan hantideennu yar tahay aqoonteenna kale aynu nolosha u leenay yar tahay wax walba yarnay waxyaabaha koowaad ee muuqday ee inagu soo baxay waxaa ka mid a guriga oo burburay. gurigu maadaama uu yahay unugii bulshadu ka bilaabmaysay maadaama uu yahay halka lagu traingareeyo qof kastoo bulshadan aynu rabno inuu ka qayb qaato. trainingka koowaad gurigu ku qaataa. guriga ah meeshaynu kalgacalka cadaaladda walaalnimada sinaanta mas-uuliyadda takaafulka waxaasoo dhan meesha aynu rabno qofka inaynu ku barraa waa guriga. hadduu gurigaasi dumo dhibtiisuu leeyahay. sidaa ogeed baa ibliis xadiidku hadda sheekhu akhrinayay wuxuu abbaaray unuga ugu khatarsan ee bulshadu ay leedahay inuu dumiyo. xadiidkii saxiixu muslime sheegayey ibliis baa kursigiisa boqortooye wuxuu dhigtaa badduu yaalla kursigaa boqortooyo badda yaalla uu ku fadhiyabaa u yimaadaan shayaadiintii uu diray oo dhan. parliamentariankaasi markay isu yimaadaan waxa la isweydiiyaa maxaa soo qabateen. dowladdiisii dhammayd wixii ay soo qabatay markay sheegaan anugu kanbaan sameeyey qofka koowaad ee uu soo dhoweeyey nebi maxamed wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ibliis ciidankiisa ka uu ugu jeceliye uu u soo dhoweeyo ee uu yidhaahdo adigu waxbaad soo qabatay waa ka yidhaahda reer baan u tago maa taraktu xataa faraqtu bayna wa bayna imra'ati kamaan iman ilaa ayaan kala kaxeeyey isaga iyo reerkiisii kaa intuu soo dhoweeya buu yidhahaa nacam ant
haa waa adiga ninka shaqadii loo baahnaa soo qabtay. waxaan leenahay mu'asasadaasina waa inaynu ilaalinaa. waa shayga labaad aan tilmaamayo inaynu ilaalino. mu'asasadaasi waxay ka kooban tahay aabbo iyo hooyo iyo carruur. waxaan leeyahay gurigu ihtimaamaadka ugu weyn, prioritiska ugu weyn waa inaynu siinaa carruur. carruurta waa inay ku yeelataa nolosheena prioritiga ugu weyn oo ah inaynu kobcinno oo jirsiinno oo islaamnimadii iyo dhaqankii iyo waxaynu sheegayno dhan aynu u gudbin karno ku hayn karno. intaa haddii aynu isla helno ay nabad gasho waa intaynu u baahnayn, laakiin intii waynu isla la'nay. guryihii waa burburayaanoo waxaynugu soo kordhay wax la yidhaahdo hooyo qudhoo carruur haysata. yani mujtamaca soomaaligu waagan dambe wuxuu ka mid yahay mujtamacaadka ugu furis badan. mujtamacaadka ugu furis badan baynu ku biir. meel kastoo aad tagto hooyo 3, 4, 5 carruura jiidaysa oo bilaa aabba ah. bal waxaa soo biiray kuwa aabbaloo haddana agoonayana. furitaan ma jira, aabbihii waa nooliyo waa jiraa, laakiin ama qaad ama darooga ama baliya baaskalu iskaga mashquul yahay. isna wax dhintay inta badan kama gedisna. idan faamiliga problemkiisiina wuu tiro batay. waxaynu isweydiinaynaa marka, yani faamiliga markuu tiro batay problemka nooca kani waxaynu ku dhadhownuun dee black americanskii la tilmaamayay. gabadha black americankiis ay lacag u hesho waxoogaaya meelaheedaas iska martaa 2-3 bay dhashaa. 2-3 child benefitka ay ruma rabtaa inay ku qaadato. dabeetana dad unbaa iska kara hadhow mafia iyo wada criminalista. kama gedisnin. maanta markaad xabsiyada tagto Soomaalida waxay ka mid tahay meel kastoo aan soo maray xabsiyada ku yaala. dhalinyarada Soomaalida waxay ka mid tahay jaaliyaadka muslimka ee dabadda ku nool dadka ugu badan ee xabsi ku jira. inna waxaynu soo haysanaa inuu jeelashun taga taa masaladaas moodisaan been. jeelasha taga anywhere waddanka doonto ha ahaado, from Scandinavia up to New Zealand ilaa North America inta ka dhaxle ma waddanka doonto tag ee bulsho reer galbeeda ee Soomaali ku nooshay. waxay ka mid yihiin muraahiqiintooda ama da'yartoodu dadka ugu badan ee jaaliyada ee xabsi ku jira ee criminal ah. waxaynu u baahannahay waxaasoo dhan inaynu ka fakarno. waxay isweydiinta leedan waxa weeyaan mal xal ma la heli karaya? wax badan inaan soo koobaa baan rabaa waayo waqtigaan haystaan badnayn. xal waa la heli karaa. kow waxaa la heli karaa sida uu doctor Cabdillaahi Cilmi baxthigiisa uu educationka kaga warramayo ku tilmaamayo garasho in la helo. garashada wuxuu uga jeedaa nolosha aynu la noolahay inaynu fahamno wacyi yeelano, ogaano khatartu halka ay nala marayso, inta guryaheennii burbureen, inta jeelashaynaga jirta, inta aynu lunsannahay inaynu si fiican u fahamno ayaynu u baahannahay. waxaynu u baahannay inaynu toosin helno joogto ah, dad wax toosinaya oo u heegana risaalada inay wax toosiyaan inay qaadaan. ducaata waxaynu u baahannahay inaynu sabir la nimaadno. noloshu waa ibtilaa iyo imtixaan. imtixaankii nooca innaga inugu beegmay noocan buu noqday. ilaahay wuu ku itixaamaya, mid xanuun lagu itixaamo, mid lacag lagu itixaamo, mid dagaal lagu itixaamo, mid mushkilad kale lagu itixaamo. nolosha gebigeedu waa ibtilaa. laakiin wuxuu u baahan yahay ibtilaaga aynu la kulannay inaynu isku dayno
inaynu xal u heli karno. saa daraaddeed mushkilad kastoo aad xalilaysaa waxay kaaga baahan tahay sabir iyo deganaan. waxaynu u baahanay inaynu helno midnimo. erayadan baan isku dayayaa mid walba inaan isdul taagi karo. waxaan u baahanay bulshada aynu la noolahay waa bulsho aynu nidhi wax kastoo meesha yaalla inta ugu badan le waynugu khilaafsantay. maadaama ay waxaasoo dhan inugu khilaafsan tahay saynu ula noolaan kari lahayn waxay u baahan tahay inaynu urursanaano. haddaad xamar ka timi iyo haddaad hargeysa ka timi, haddaad mudug ka timi iyo haddaad jubbada hoose ka timi, meeshaad doonto ka kaalay, halka kan hal identity baynu wada ilaalinaynaa. hal identity ayaynu wada ilaalinaynaa. midkeenna gaar uma ilaalin karo. halka kan wixii aynu isku haynay kama dhisayno. dowlad Soomaaliyeed iyo Soomaalinimo iyo dhulkeedii midna kuma haysid. kama warramayno. waxaynu ka warramaynaa inaynu halka kan ka dhisi karno waxa identity-ga inoo ilaalin kara dadka halkan jooga ah. inay Muslim Soomaaliya ahaadaan waa identity. ka xamarka yimi intaasuu u heegayay inuu ilaaliyo. ka jubbooyinka ka yimi intaasuu rabaa inuu ilaaliyo. ka mudug iyo Puntland ka yimi intaasuu rabaa inuu ilaaliyo. ka Hargeysa iyo Burco ka yimi intaasuu rabaa inuu ilaaliyo. laakiin ducfa inugu jira. midna keligii wax ma samayn karayo. waxa uu keligii sameeyaana waa wax aan buuxinaynin intii uu u baahnaa. bale waxaynu u baahnayn dowlado iyo cid ina gargaarto iyo jaaliyad inaynu u noqonno dee dowlad weyn oo aynu ku tiirsanaano. tiina ma haysano. meel laba kuwa joogaa idinkaabay wax idin bidayaanoo qoladii dabadaha soo socota iyo lacag bay soo dirayaan iyo aqoon-yahanaa ka soo socday idinkaaba naf laydin moodaya. nimankiinaa badda ku jira leenahay war badda saa uga baxdaan ayaa kuwa gudaha joogaana leeyihin cid baa inoo soo socoto dhowr aqoon-yahan baa yimi iyo meel bay ku shireen. idan xaggaana cidi kaagama dambaysa ilow adiga ku kaalmaysaa ee aday kaalmo kaa sugayaan. intaanad iyada kaalmayna waxa ka horeysa waxaan aynu beedkan aynu meesha la nimiye intan aynu meesha tan ku haysanno inaynu ururin karno hayn karno oo aynu ku hayno hal wax. qolada gaaleed baa waxay dhahdaan shaqo haddaad rabto si fiican in loo qaban karo job description unbaa loo sameeyaa. waa in la garan karaa shaqadu waxay tahay dabeetana waa la qaban karaya. shaqadu waa inay noqotaa dagaalka xamar ka socda kama warramayo, ka waqooyi dowladda ka dhisan kama warramayo, meel kale waxa ka dhisan kama warramayo. waayo kaa waa inaynu ku kala gedisanay saa wax looga qabanayana inaynu isku aragti ahayn baa laga arkaa. laakiin ma suurtagalta inagoo kaa isku khilaafsan ilmaha halkanee badda gelaya inaynu wada qaban karno? mise waa 100% inaynu iswaafaqno iyo 100% inaynu isdillo waxba kama dhexeeyaan? يعني Soomaaligu waa 100% ama ay raacsisnow ama 100% ina kala kaxee. masaladaas waxaan idin leeyahay dib uga noqda oo waa in la samayn karaa bulsho isku xidhan oo Toronto degan oo u fakaraysa bulshada Soomaaliyeed ee Toronto degani way ceebaysantay. media dhexdiisa waa ku ceebaysantay waxa laga qoro sida kuwa kale ugu ceebaysan yihiin. saqataadkiina la ururinaya iyo waxyaaba qaladaadkiina idinka dhacay waa ceebaysantiin oo idinkoo dad tira yara baa laga yaabaa inaa xabsiyada ugu badantiin. haddana waa ceebaysannahay oo dadkeennii waxba baran kari la'ayo horu socod bay la'yiin. hormuud baanay helin oo waa ka wada dhaceen. nambarkaa ku joogtaan iyo marka la eega nambarka jaamacada ama high school idinka gaadhay waa wax tirsan uma qalmo inta kale. inta kalena ee soo socotay tirada badan lana haddaan laga hortagin waa wadada tan iyaguna tay hayaan. waxaynu u baahanay markaa badda tan sidii looga bixi lahaa. in badan baa laydin lahaa guura oo noqda yeeli weyday. taana iyana yeeli weydo dee kama warramayo. haddaba waa joogtaane waa inaa wax noqotaan. wax noqodkaasi wuxuu u baahan yahay ilaahay quraankiisa wuxuu inoogu tilmaamayaa muslimku inuu ururo oo kulmo oo isgargaarsado
وحديث النبي ينوت المام مسلمين توينا walaaltay waxa la inoo tilmaamaya inuu xooga walaalka aad xoog ku tahay waxa la inoo tilmaamaya walaalnimadu inay tahay in aynu isgargaarno waxa lagu tilmaamaya in Ilaahay subhanahu wa ta'ala qiyaamaha uu mushkilaadka jira ka saaraya markaad walaalka mushkilada ka saarto yani xadiiska nabiga ka asaxday intaas aynu akhri karno nusuusa waxaan leeyahay kow shayga koowaad aan idinku la talinaya waxa weeyaan war ururo wataniya oo halkan wax ka qabta yeeshe anigu kama warramayo jaaliyado ama Somaliland u dhisan ama Puntland u dhisan ama Jubaland u dhisan ama Mainland oo kale u dhisan kama warramayo waxaan ka warramayaa jaaliyad u dhisan Toronto masjid u dhisan Toronto mujtamac u fakaraya Toronto waxaan rabaa dadkii Toronto dadkan dhisi kari lahaa haddii kuwa halkan joogaba badda ay galayaan intaad ismaqiiqdo inaad tidhaahdo anigu xaggaas aan wax ka qaban karaya halkan baad wax ka qaban kari weyda xaggaan wax tarimaysid dad halkan wax ku noqotaan ayaa berrito iyo mustaqbalka dambe xaggaana wax ka qaban karaysaan laakiin haddaydan halkan wax ka qaban karaynin xaggaana wax ka qaban kari maysaan aragtidayda koowaad markaa waxay tahay waraan yeelano jamaaca iyo midnimo hormood haydinka noqdaan maraakista kana maanta dhisaysaan lacagta leedin weydiinaya lacagta galiseen iyo kuwii hore u jiray dib u nooleeya muruqiin iyo xooggiin iyo caqligiina isugu keena waa suurtagal sida wax loo qabanayo in muranu ka yimaado laakiin mar kastaba cidda maamulka haysa looga dambeeyo cidii maamulka u haysa meesha ha looga dambeeyo dad maamulka la bedelaynin ولذلك أنا قلت الله ذي وحويان ور مسألة آدي بقول نقطة قلبت كنا واحد نكون نقالنا هو الديمقراسي كنا واحد كأصلة فرص بالغو أقولي فرصة دا إنها تدفع إذا حقاق قصين ما يسوي لكن حقاق والدفاع عن كرتابة الأولي دا تقول حقوق أنت وحسكر دحين يسوي حقاق والدفاع عن كرتابة ساسي دراديد با waxaanu hay-ayari organization u jira inaga organization kan waa qaab wax loo cunayo wax loo lumiyo iyo wax daran buu ku dhisay misalada waan idinku celcelinaya waxaan leeyahay war jiritaankiina ku xidhan ina midowdaan oo at least u midowdaan mesela hadaad tirahdaan Toronto waa west iyo east at least in west wixii joogo dhami wax wada qaban karaan east wixii joogo dhami wax wada qaban karaan kadibna uu noqon karo east iyo west oo la isku daray dad Toronto degan wax wada qaban kara aad baan ugu celcelinaya masalada aad baan ugu celcelinaya waxaan suurtagal ahayn in ma jiraan haygo odhan inaad suurtagal ma practically waan soo arkay dhul Europe kamid ah oo ay suurtagal ka noqotay وانا suurtagal وانا la wadi kara suurtagal waxa ka dhigi kara cidda hormoodka ka noqota iyo qiyaadadu sida ay u fakarayso misalada qiyaadada la yiraahdo hormoodku aqoon iyo intelligent qura maaha waxa laga yaabaa inaad IQ-gaaga aad u sareeyo degree iyo diblooma badan oo sare inaad seeto aad isku wado wax badan aad arki karto xaqiiqana ay tahay inaad wax badan arki karto laakiin qaa'idka iyo nubuuqo waa kala gadisan yihiin naabiqa yani nubuuqa waxa la yiraahdaa waa qofkaasi indheer garadka ay ku sheegaan indheer buu garanayaa meel fog buu wax ka arkayaa وأن ميل فوق وحكا أركيا دات كوا جابين سيدا لوكال ديريا دات المامت لوكال أركي أوجي وأن كار ديرو ميل دروكسام وحكا أركي كريا وحصاص عضا قيبا كم يدبو درسي كريا ديتنا وحكوا لي أنا أركا سيدا يا سيدا وقالو لكن مركي قيادة يمام التمادو مسألة داس أو قوري ما شقايسو مسألة لباد بلغ الربا قيادة دو والليدرشيب ويتي لكن ليدرشيب لماذا وحكم ده inaad dadka tarbiyeyn karto kobcin karto kor u qaadi karto macnaheedu waxa weeyaan bulshadan inaad tusi karto waxa aad arkayso ku qancin kartid inay kula arkaan ay kula guuraan waa ilaa hadaa taa awoodi kari weydo laba mid un baa dhacaysa inaad tiraahdo waar waa qaar aan guuraynin oo nafteed ma leh waad iskaga tagto
tad cadhoota aad duddo oo gurigaaga hoosta aad ka xidhatid ama inaad tiraa war dadkani wax maqli maayaan anigu waa iskala tukanaya una iska dhex joogaya meeshay doonayaan ha u socdaane waa musaalimkaasaan iska ahaanayaa salaadaydaan iska wadayaaye xagay doonaan ha u kacaan ninka qaa'idka loo yaqaana ama leadershipka ahi waa qofka qancin kara bulshada uu wado haddaad bulshada qanciso waa kula guurayaan haddaad se keligaa wixiina aragtid dadkiina ku aqbali waayaan nin waalan unbaad soo baxaysaa warkani waa shaad baa lale waa qof dawaqsan wuxuunbuu sheegayaa waa xaqiiqo wixii waad aragtaa laakiin bulshada la rabo inaad hogaamisaa waa bulshama waa dad buka xanuun qabiil la yidhaahda haya waa dad aqoon yar oo aan wax badan garanaynin waa dad meesha ku cusub oo aan si fiican u fahmaynin idan haddaad dakhtar noqoto waxaad u baahan tahay qofka mariidka inaad daawo qura u qorto maahe psychological inaad u daweyso oo aad qancin karto inuu daawadan qaato sidaa u qaato saa u isticmaalo walidaalika qofkiina qaa'idka ama dadkiina hormoodka ama dadka qiyaado u haya a'imo masaajid u ah ducaad u ah maamul u haya hogaamiye u ah waxaa looga baahan yahay qiyaadadu wixii ay lahayd inuu yeesho inuu qof degan yahay dulqaad badan yahay sabir badan yahay wax dheer uu arki karayo juhdi badan uu bixin karayo awooduu dadka ku qanciya inuu leeyahay waxaasoo iskaashada qiyaado noqon karaya markaa dadka waad rari karaysaa inaga mashkiladeennu waxa weeyaan kii wax bartay ama wax arkayeyna 2 maalmood markuu hadla yidhaahdo war hala guuro waxan baa dantu ku jirtaa ee dadkii buka yidhaahdeen reerkoodu wada ama waxan buu waxbaba lala arki waayo isna dudiyo iska teg dadkiina halkii bay wali yaalin waxaan leeyahay war dadka hala ururiyo qiyaadaduna hanakadan baa soo saarta tadriibkan baa soo saara laakiin dadka qaadada u ee mujtamaca kan hogaaminaya imaamka u ah waa inuu gartaa dadkan uu hogaaminayaa dad nooc walba isugu jiraynayeen mid caqli yar mid qabiilaystaa mid buka nooc walba laakiin mar raba anigu inaan kaa qabiilaystaa ka tago ka caqliga yar le inaan ka tago ka xanuunsanaya inaan ka tago waayo xooggaan u baahnaabaa intan ba ah dadka waan haystaaba waa intan kuwan badbaadinaya waa kuwan carruurtoodii hadday intan carruurtoodu fasahada adigaaga wadaadka intiisana way fasahadinayaan ilaan intan unbuu garanaya ku xidhan yaho uu meel kula nooliyey waxaan u baahannahay markaa waxa weeyaan waar bulshadan ha la ururiyo waa mid dadka raba inay bulshada hogaamiyaanna ha ka muuqdo dulqaad iyo axnaf ibnu qays ninka la odhan jiray axnaf ibnu qays waa nin mukhadrama waa raggii nebi maxamed soo gaadhay calayhi salaatu wasalaam laakiin culammadu ay yidhahdaan kibaaru taabiciin baa lagu tilmaamayaa ee muu arag nebiga axnaf ibnu qays waa nin shakligiisu aanu aad u qurux badnay axnafnimadu waa wagdoole waa nin cagu qalloocaan waana ilaa aabaa la sheegaa haddana sayidulqowm buu ahaa nin taliya oo aad looga dambeeya ayuu ahaa axnaf ibnu qays baa waxaa la yidhi mid baa caayay dabeetana wuu iska socday sidii u soconayey ayuu meel soo gaadhay dabeetana kiibaa cay la dabagalay kii intuu ku soo jeestay buu yidhi waryaa bal wixii aad cayahayso dhan soo dah intuu ku soo jeestay kiibaa yaabay dee ninkii uu caayaye maagaye salaabu kula dagaalamaya ayuu intuu ku soo jeestay yidhi waxaad cayahaysaba haat maa macak axnaf ibnu qays baa waxaa la yidhi maxaad sidaa u yeeshay wuxuu yidhi tolkay majliskiisii baan ku socday yacni halkii dadkii aan boqorka u ahaa sayidka u ahaa meeshoodii baan rabay inaan fadhiisto marka isagoo caayaya haddaan dadka u tago way dili lahaayeen buu leeyahy waxaan rabay inaan u naxariisto oo aan idhaha war caydaada dhammayso iska tag si aan loo dilin yacni kaa caayayuu ka naxayaa waayo kaa caayayuu arkayaa dadku waday inuu yahay saa daraaddeed ninkan cayda la daba taaganee maagaya ayuu isna wuxuu rabaa inaan wax la yeelin adiga haddii mid ku caayo mid kale feer ku bilaabo nin raga baad odhan lahayd balaayada mid naga dhiciyaa la helay laakiin kani wuxuu rabay ninkaa caayayay ee maagayey inaan dhibi soo gaadhin oo uu hogaamiyo axnaf ibnu qays bay waxay idhahdeen waryaa axnaf dulqaadka intaan leeg xagaad ka baratay baa la yidhi caasim ibnu qays buu yidhi caasim ibnu qays waa nin saxaabiya oo xoolo badnaa hal dooxo dhexdood baa waxa daaqaa keligii baa lahaa baa la yidhi
ninkii nabiga kula xadiiskii xoolaa ka warramayay geel intee in laga yeesho 10 oo uu yidhi ilaahay rasuulkiisii oo ka badan 60 markuu nabigu gaarsiiyo yidhi war intaas kuu fala 60 geeliye waxa ka badan waxa la yiraahdaa dooxa dhan ba xoolihiisu kaligii daaqi jireen dabeetana isagoo maalin meel fadhiya baa la yidhi oo dad la fadhiya ayaa waxa la keenay inankiisiyo meeyda oo la dilay iyo mid ilmadariin oo dilay yani isku caailadii oo dilay oo xiran ayaa la soo dul taagay isna qol uu la hadlaya inaanu dhalo kale meesha fadhiyay wuxuu ku yidhi waryaa kac oo walaalka meydkiisa soo tajhiisi soo hagaajiyo markaad xawaasha diyaariso ii soo sheeg ibn cammi kaana xadhiga ka gooyo siida geela halkaa joogana hooyada 100 halaad oo magtiya uga kaxay buu ku yidhi dabeetana warkiisii buu iska watay baa la yidhi axnaf ibnu qays wuxuu yidhi dulqaad waxaan ka bartay caasim ibnu qays baan u imi buu yidhi oo inta inankiisii la dilay la keenay oo aan xataa hadalkiisii goynin buu yidhi dulqaad wuxuu ka qabay intuu intaa inanuu dhalay ku yidhi hooyadaana magtaasi ninkana xadhiga ka furo siida meydkana soo hagaajiyo marka dambaysa ii yeedh ayuu warkiisii iska watay buu yidhi sidii aan waxbaba dhicin yani wuxuu tilmaamayay intuu sabri karayay ninka kani ee dul qaadan karayay ee aan waxba qof dhibi gaadhayba aanu arkaynin waxaan uga jeedaa dadka qiyaado noqon kara ee bulsho hogaamin kara waa inuu noqdaa qof aan shakhsiyadiisa u fakaraynin qof aan waa lay caayay iyo waa lay maagay iyo waxbaana laga sheegay iyo kambaana la yidhi iyo war ilaahay nebiyadiisii baa la caayay oo la maagay wax laga sheegay rasuul dhaafi maysid manzilo rasuul ka sarrayn maysid waxaan rabaa markaas inaan idhaahdo bulshadan waa la isku wadi karaa haddii qiyaadadii loo baahnaa abuuri kartaan oo samayn kartaan dadkii dadkan hogaamin kari lahaa ee dul qaadan kari lahaa haddaa samayn karaysaan dadkan waa la wadi kari lahaa walidaalik mustaxiil wax la yidhaahdo bulshada dhexdeeda aanu garan maayo aniga agtayda waxay ka tahay inay waxaan oo dhami yihiin mumkin akthar min marra bay mumkin yihiin soomaali in la wadaabay mumkin tahay masaajid yar yaan arkayo jabhaadka soomaaliyeed oo dhan ay mid ku yihiin iyagoo jabhadaa waayo ciddii markaa maamulka oo haysuunbaa waxay garatay maca jabhadaha kan inay isku wado sanan baa joogta tii caydiid baa joogta calimahadii koox ka socotaa joogtay SSDF baa joogtay iyagoo jabhadaa bay member ka ahaayeen waayo waxa loo danaynayay caruurtooda iyo dadka yaryar masaakiinta iyo intan inaanay lumin oo diin lagu hayn karo oo bal ay meesha joogi karaan oo la wadi karo bulshadii kale Soomaaliyeed ee masaakiinta ahayd caruurtooda wadatayna way joogtay waxaan uga jeedaa markaa gaar ahaan dadka wadaadada ee qiyaadada mujtamaca u haya waa inaanay kalsoonida luminin kalsoonidu waa waxa bulshada lagu wado waa inay kalsoonida luminin waa in la hogaamin karaa waa in la dul qaadan karaa waa in xagxagasho la aqbali karaa bulshadana waxaan leeyahay dudmadan badani waxba idin kordhin mayso inaad kala dudaan waa reer hebelo baraan mustilay iyo reerahayaga bari istilay iyo dowladdeeda dowladdiisa isku duuleen iyo waxaas halkan waxba kama taraan halkan caruurtiin iyo daawo wada saaran baa taala waa from frying pan to fire daawaha kulul hadday kasii dhacaanna hel buu sii dhacayaa waxaynu u baahannahay daawaha kulul intaynu ku celcelin karno inaynu ku celcelin karno iyana juhda inooga baahantay haadii waa ka koowaad ka labaad waa inaynu guryaha dhowro mawduucii laga warramayay ilaa habeenadan oo dhan wuxuu ahaa usrada iyo sida loo ilaalinayo usradu waa ka asal aleena muurkan iyo hooyadan kalida ah iyo ninkan suuqa iska maraya iyo waa isqabanayo waa isfurtay in laga baxo oo bulshadu inay yeelato dadkan isku xejin kara dhexdhexaadin kara isku soo dhaweyn kara wadi kara kaalmayn kara hooyo kaliya inkastoo ay dadaasho hooyabooyin badan oo fiican oo kaliya ay jiraan oo runtii ragga qaar Yurub jooga ka fiican waxay qabteen haddana hooyo kaliya wax ma wadi karto walidaalك waxaan leeyahay guriga ilaalintiisu waa inay noqotaa shay aad u weyn oo mujtamaca aad ugu weyn
ilaalintiisa waxa keensanaya qadaayaadka guriga adigoo cadhaysan weligaa go'aan ha ka gaadhin weligaa adigoo cadhaysan go'aan ha ka gaadhin Soomaalidu maalmahan soo socdaan inii yimo wuxuu igu yidhi sheekh waxaan ku weydiiyo gabadh baanu intaasoo sannadood isqabnay waqti aad u badan buu ii sheegay dabeetana maalin dhaweydun bay si xun iiga cadhaysiiso saddexdiiba waan ku furay baan idhi markaasaan weliba ugu celceliyey buu yidhi oo weliba waan ku furay oo weliba waan ku furay oo weliba waan ku furay baan ku idhi buu yidhi markaa bal sheekh iminka maxaa yeela cadhada iga baaday buu yidhi reerkiina dee carruur badan baa joogto yacni waxaynu intaasoo sannadood aad dhisaysay xoog iyo xoolaba aad lahayd ee aad gelisay ninkan waxaa laga yaabaa how many years buu reerkaa dhisayay iyo ciyaalka iyo intaa uu shaqaysanayay noloshaada cimrigaagii qayb ka mid ay qaateen aad subax walba u sii kala haysay malcaamad gee oo iskuul gee oo shaqo tag oo ka soo noqo oo saan u wado intaasoo sannadood wixii uu u kala hayay 5 minutes gudahood buu xagga kale ugu rogay within 5 minutes dabeetana after 5 minutes kiiba haddana xal raadinaya waxaan leeyahay qadaayaadka guriga markay joogto iyo nolosha gebigeedaba qaacida qaado abidkaadoo cadhaysan go'aan ha qaadanin bini aadan baa too cadhayay kaa dhicin ku odhan kari maayo waad cadhoonaysaa laakiin waxaan ku leeyahay adigoo cadhaysan abidkaa go'aan ha qaadanin cadhood islaanta isdila laakiin iska tag cadho burbur seexo weysayso tuko meel kala qabo go'aan ha gaadhin waayo waa go'aanadii nolosha ugu khatarsanaa waa go'aano aad ubadkaagii ku waayeyso oridaadii ku waayeyso reer aad intaasoo dhan dhistay 10 years 20 years waxaad ka shaqaynaysay iminkaan mid damba bilaabi doona macna samayn mayso haddaan reer iska abaamudanaya meeshay doonaysaa ka macna samayn mayso waayo waa 20 years of your life ayaad leedahay waa nonsense waxba kama jiraan wax lagu hadla maaha walidaalika waxaan idin leeyahay war furitaanka ha la joojiyo reeraha dhiskooda ha la ilaaliyo eva go'aan ha qaadanin adigoo cadhaysan waa aad kala degantoo miyirkaaga aad qabto go'aankaagu ha noqdo halkaad xalka ka raadin lahayd ee intaad hadhow soo cadha burburtaad odhan lahayd sheekh saasaan yeelee maxaa tala ah taladu adiga gacanta ha kuugu jirto markaa tasho daad saddex soo furto haddana aniga talay soo weydiiso dee waa reerkii kala dirtay maca salaama waxay kugu lahayd si uma ku odhan doonaa laakiin haddii aad iska tagtay oo soo cadha burburtay taladu aday gacantaada kuugu jirtaa adaa go'aansan lahaa waxaad yeelaysee wadaad umaad baahateen walidaalika masalada waan ku celcelinaya waqtigii lay qabtay baan waxba ka hadhsanayn saa daraaddeed wax nusuusa ma akhrinin waa laga yaaba nusuus badan oo aan soo qoray inay meesha iga muuqato laakiin waxaan isku dayayaa bal warkaan rabay oo kooban inaan idin gaadhsiin karo mala war iska macquul oo caqliga geli kara xataa haddaanan daliil raacine waxaan idin leeyahay guryaha dhowra ka saddexaad aan tilmaamaya waa ubadkii ubadka waa u baahnaa runtii waqtiga ugu badan inaan geliyo laakiin maadaama 2-3 muxaadaro hore oo tarbiya carruureed ku saabsan ay ka soo baxeen halka kan ubadkeennu imtixaanadii iskuulladii wixii oo dhan way ku liitaan waa xaqiiqa jirta marar badan inay ku liitaanna gar bay u leeyihiin waayo waa inaan gartooda siinaa waayo waa qof wax ka culus la saaray 3 shay baa qofka tarbiyadiisu uu dhaxeeya guriga iyo iskuulka iyo bulshada bay yiraahdeen bulshada markay israacinayaan mar waxay uga jeedaan iclaamka suuqa waxaas oo dhan oo la isku wada daro jaarka saaxiibka waxaas oo dhan saddex risaalo oo kala gedisan bay ilmaha u dhiibaan maanta iskuulku qaab buu wuxuu tarbiyaa at least tacliim buu ka rabaa at least education baa yaalo qaab loo qaabeeyo waxbaa la rabaa in la baro suuqa iyo TV-ga iyo waxa la boodboodiyo qayle iyo tubasho iyo wax kale ka rabaa oo xayeysiinaya habeen iyo maalinba lagu akhrinaya reerkuna wax kale ka rabaa dhaqan iyo muslimnimo iyo waxaas oo dhan inuu ilaaliyo abu ka rabaa waa 3 shay oo iska soo horjeedo inankan u dhaxeeya waa mar labaade waa ilmo ajnabi iyo qurbo ku nool qurbuhu nafsiyan buu qofka wax u yeela
qof aan dadkiisii iyo mujtamaciisii iyo wixiiba la noolayn. ka labaad qoyska uu ardaygu ka yimi iyo xaaladoodu wax badan bay waxbarashadiisa ku leedahay. carruurta tiradooda, guriga deganaanshihiisa, way carruurtu markastoo ay badato guryaheeni way yaryaryihiin, buuqaa badanaya, miisaantiya wixii wax lagu qorayaa yaraanaya, islaantu halkan bay telefoon haysataa 24 saacadood ina telefoon bay ku hadlaysaa. all this waxay ta'thiirinayaan ilmahan yar waxbarashadiisii, waayo jawi degan iyo kursiya miis wax ku barta iyo meel gaara ma yaalo. waalidka waxbarashadiisu qayb bay ku leedahay. innaga qaabkaynu wadanadeeni uga dhaqmi jirna wuxuu ahaa macallinka wixii waxbarashaa ka mas-uulaha, reerku inuu ilmahan cuno siiyo dhiso, laakiin halkan maaha. halkan macallinkuna waxbuu mas-uul ka yahay, gurigana waxbuu mas-uul ka yahay. in lala shaqeeyo homework oo la caawiyo, keenna caawiyana si waalan buu u caawiyaa. aabba maxaa lagu soo miyaad garan weyda keenana kaaga shaqaynaya buu idhaha. haddaad uga shaqaysana waxba maa tarin, waa inaad adigu ka shaqayso, looma soo siinin, in isagoo ka shaqeeyaabaa loo soo siiyey. wuxuu ka wahsanayaa intuu ilmahani kolba qaldaya uu sixi lahaa uu kaalmayn lahaa buu ka wahsanaya. markaa wuxuu rabaa timeka inuu soo yareeyo, keenaa baana kaaga shaqaynaya, qoran waa kaase ku qoro hadhow. ma aha system waxbarasho, waayo ilmaha waxaan loo soo siiyey in lagu train gareeyo, adna waxaad diidanta inaad waqti geliso ku train gareyso. waa dhab qaabka uu noloshoodu u dhisnaayeen iyo keenu uma dhisna, waayo gurigii 5 carruur ama 6 joogto adiga laftaada waqtigii cidhiidhi kugu noqonaya. 6 markaad mid walba homeworkiisa lagu yidhaha gaar uga shaqee oo caawi. ka gaaleed waxaa laga yaabaa gurigaba in dayn midh jooga ama 2 midh jooga, labada qof mabana inay wax aqoon yihiin. markaa midba mid markuu saacad siiyo waa la dhameeyey. adiga waxaa laga yaabaa odagii islaanta inaan ama labaduba wax qorin ama mid xoogaa jajabsado, ka kalena aan waxba aqoonin. haddii lays yidhahdaa caawiya dee mid 6dii mid waliba saacad buu kaa doonaya, waa 6 saacadood. waa mushkiladii nagu cusub. almost waxay fududaan lahayd haddaynu nahay organization jira, halkan baynu waxaynu ku qaban lahayn 3-4 nin oo macallimiina, dabeetana classes halkan baynu uga furi lahayn oo ah kalaasyada caawiya ardada. ardaydu halka iman lahaayeen, waxoodoo dhanba ka shaqayn lahayn, macallimiinta caawin lahayd. wuxuu noqon lahaa qaab ardayga loo kaalmeeyo. laakiin markay 6diiba gurigii ku rawaxeen, islaantii odagana midna aan wax qorin, ama odayguna wax qoro markuu 8 saacadood soo shaqeeyo, xaggaas islaantuna maanta dhan markay shaqaynaysay dherigiina ay karinayso, dee waxba iyana kuma hadhin, waqti kuma hadhin. haddana 6dii yaryaraa mid waliba doonaya in homework gaara lagala shaqeeyo. waa problem ilmaha meesha jooga haysta, waa problem haysta dugsiga uu dhiganayo meesha ku yaala. waayo waxaynu inta badan tagnay meelo ku saabsiisan guri jaban inagoo raadinayna, dabeetana iskuullada ugu liita baynu dul degnay. islaan madoowo 2 carruura intay cidlo ka soo dhashay rabtay inay lacag ku qaadato, dabeetana dowladdu tiri qasab waa inay iskuulka ku yimaadaan, oo ilma aan mustaqbalba arkaynin ee mustaqbalkiisu isna yahay halkii hooyadii ka bilowday ama abi ka bilaabay inuu joogo. inagu Soomaali ahaan waxaynu rumaysanay oday kasta ma rabo siduu isagu yahay inuu ka sii sarreeyaa u doonaya. odaygu waxba ma qoro waxna ma akhriyo, laakiin fitriyan ba waxaynu aaminsaneen inuu inankeenu injineer noqdo iyo tabiib uu noqdo, adigoo aan adigu waxba qorin oo kaasaad lahayd u train garee. laakiin halkan waa dhib. iskuul aan ambition ba lahayn ilmaha markaad geyso, ilmuhuna ambition isna yeelan maayo. waa iskuulka dadka joogaaba wax ambition leba kuma jiraan, waa la iska yimid. macallinka dhigaana intuu ka quustay ayaanu isna dan ka lahayn. hadduu lafihiisu nuga nabad galaba oo dilayaan, waa lafihiisa inuu ilaashado unbaaba u muhiima, laakiin inuu controlo iyo inuu kuwan wax u dhigaa muhiimad weyn uma aha. haddii ilmihiina iskuulkii u tegayeyna uu isna noocaa noqdo, ardaygana xaaladiisii shakhsiyadeedna ay markaa u dheertay, waxbarashada siduu ku yahay, IQ-giisu suu yahay, inuu casabi yahay, inuu qof degan yahay, iyo wuxuu yahay ay meesha taallo, iyo waxyaabo badan oo tiro badan leh. waxaasoo dhamiyana waa wax raadaynaya ardaygan yar. inana waxaan leenahay muxuu wax u baran waayey. all these things akhwati fillah waa mushkilaad, laakiin waxaan rumaysanay mushkilaad wax laga qaban kara inay tahay. nabi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi isagoo keligiiya buu yimi, gaaluu dhex yimi, aan waxba ilaahay rumaysanayn, lacagna ma sidan, waxna ma sidanin, laakiin dad buu train gareeyey oo organize gareeyey oo dunida maanta la yaqaanay muslimkaa la abuuray. suuqa iyo iclaamka iyo dhaqanka iyo diinta iyo waxa meesha joogaba oo ka soo horjeedeen, laakiin juhdaa la geliyo lagu sameeyey.
inagu waxaan rabnaa inaynu daawanno waxna isbedelaan war habacsanaantan aan iska dayno waa habacsanaan kii xataa arkayay ceebtun buu kuu tirinaya waxan baa dhaco sidan baa jirto saan baa jirto khalaas wallahu almustacaan buu leeyahay dabeetana wallahu almustacaan waa kula ogollay laakiin we should do something taayirka waa inaynu rognaa haddaad 1,000 mayl rabto inaad socoto tallaabun buu ka bilaabmaa one step haddaad tallaabsato ka labaadna cid ku dartaa la helaya sida awgeed ikhwati fillah weedhayda waxay ku koobantay aan soconno horsocod samayno oo nonsense-kanaynu ku jirno waxba lama qaban karada intaynu ka baxnay iyo salbinimada tan aan u guuro logicska ah in wax la qaban karo qofka bini aadamkiina inuu centerka wax bedelka inuu isagu inuu yahay ka wax bedeli kara ilaahayna uu abuuray inuu wax bedelo saadaraaddeed ilaahay leeyay in allaha laa yugayiru ma biqawmin hataa yugayiru ma bianfusihim inaynu inagu la nimaadno isbedelka weeyaan isdhiibkana iska daaya waynu soo carro gaalada intaynu nimaynu waynu isukiin dhiibnay dabeetana waxaad moodaa noloshiiba dabeetana inaynu iskaba dhiibnay gebigeedii baynu qoladaa u dhiibnay oo xilka saaray deriska intaasaan ku koobayaa